si aan duco u helno aad tooda u yeesho. diidmo kadib way iga aqbashay, waana xasuustaa habeenkii ma seexan. aniga ilin way iga dhammaatay. maalmo kadib waxay u baxeen iyada iyo reerkooda Itoobiya. aniga ilaa Hargeysa ayaan la tegay. markii ay gaari Addis Ababa raaceen, diyaarad baan iska soo raacay. waxaa ii bilowday murug, walwal joogtaha iyo fikir heer aan gaaro in raashinkii xitaa aan cuni kari waayo. sida ay ahaataba noloshaasi waan iskala qabsaday. anigana intaan jaamacaddii dhiganayay ayaan helay shaqo xafiis gelin dambe ah, waana iska shaqaysanayay. iyadana wax walba oo qalbigeeda uu baahdo kama hagran, sababtoo ah nafteeda ayaa ku faraxsanayd. intoo ay halkaasi joogtay ayaa xoogaa isbeddel yimid, sababtoo ah waxay halkaasi ku baratay asxaab kala duwan. aniga ma ogaan lahayn, laakiinse waxaan hayay passwordka emailka hotmailka oo ay isticmaali jirtay. waxaa bilowday fariimo la isku diro asxaab dibadda jirta, run iyo been, waxa ay doonto ha u sheegtee. aniga xariga kalsoonida ayaan gacmaha iga hayay, kaasoo ilaa hadda adiga ayay dhab ku jeceshahay. waxaan kale waa hawl iska dhalinyaro ah. muddo markii sidaasi ay ku socotay ayaan adkaysan waayey. waan wacay, waxaana ku dhahay, walaalay maxaad sidaasi iigu samaynaysaa? waxayna iigu dhahday, adiga waxyaabahaasi waxba kaama quseeyaan. aniga kalsooni igu qab. dhammaadka sanadka 2010 aniga aabahii aan jeclaa baa geeriyooday. waxa ay soo kortay mas-uuliyadda reerkayga, waxaana noqday nin xil culus qaaday. sidaas ay tahay habeen iyo maalin, sida iyada oo Muqdisho ila joogta ayaan wici jiray, balse iyada waxaan ka dareemay gaabis badan. waxba yaan hadalka idinku daalini. sanadkii markuu ahaa 2013 ayay xamar ku soo laabteen, dhammaantood sababtoo ah laynkii ayaa socon waayey. aniga waxaan noqday nin yara shaqaysta. waxaan islahaa way kugu farxaysaa, guurna u bandhig. laakiinse sheekada dhan ayaa isbedeshay. wejiyo cusub ayaan la kulmay. way iga diiday guur, iyadoo leh Yurub ayaan tegayaa, ilmaheena mustaqbalkooda ayaan ka fikiraya. aniga tii baryo ahayd wallaahi waa iga dhammaatay, laakiinse waan iska sabray. da ayaa noogu darsantay, caqliga wuu batay. iyada waxay bilowday in rag kale ay la hasawdo. aniga asxaab meesha degan baa warka ii keena, laakiin aniga waxaan qalbigayga geliyaa kalsoonida ha burburin. anigana wallaahi bilaahi oo tallaahi waan idin dhaartay, gabar kale xiriir iska daaye, wax aan salaan ahayn isma dhaafsan, sida aan jacaylkeena u ixtiraamayay awgood. bilowgii sanadka 2015 ayaa laynkii dib loogu yeeray. waxaan ku dhahay, xayaati, annaga maxaa inoo xal ah maadaama haddana aad baxayso? waxay iigu dhahday, wax walba way hagaagayaan. aniga ayaana jawaab wacan ku siin doonaa markii aan Addis Ababa ku laabto. Addis Ababa ayaa la tegay. markaan wada hadalnay waxaan ku dhahay, haye maxaa jawaab ah? waxaa la iigu dhahay, nin yahow war aan ku siiyo, aniga guurkaaga iyo jacaylkaaga hadda diyaar uma ihi. naag Yurub rabta ayaan ahay, waxaana bartay nin Yurub degan, sharci leh, waxaana rabaa inaan mustaqbal halkaasi ka samaysto. waxaana dhahay, walaalay aniga 10 sano baan wada soconay, aad ayaana kuu jeclahay, kaamana maarmo ee sidaas ha igala hadlin. xitaa Yurubta aad sheegaysa aad, anaa diyaar u ah inaan badda soo galo oo kaa daba imaado. bal eeg, weligay dalkayga inaan ka baxo ma jeclayn, laakiin darteed inaan u baxo ayaan ku hamiyey. way i su-aashay, waxayna idhahday, war maxaa kuu sheegaa nin yahow dhegahayga? way i su-aashay, waxaana la idhahay, war waxaan kuu sheegaa nin yahow dhegdhega naga daa, ciidan ha kaa dhacdo. shanadaha aad isugaysay doqonnimadaada ayay ahayd. taleefankii waa laygu dameeyey. walaalkeed xamar reer ku leh ayay la soo hadashay, kuna tiri, Muniir u sheeg, aniga waa iga daacad, ma rabo Soomaaliya dambana uma soo socdo. run ahaantii aad ayaan qalbigayga uga karay. waxaana jirtay walaalayaal inta dhaawacaygaan fahmaysa, aflagaada, hadal xumo iyo waxyaabo badan oo ay dhahday, laakiin damiirka ayaa isiin waayey inaan halkaan kusii fagfaago. inta aan dadaal samayn karo waan sameeyey, laakiin way ii suurtageli weysay. go-aan ayaan ku qaatay inaan xiriir dambe samaynin, noqdo qof iska shaqaysta. dalkana ma doonaya inaan weligay meel uga baxo. ganacsi ayaan abuurtay markaan jaamacadda dhameeyey kadib. alxamdulilah, waxaan hadda ahay qof shaqaysta, hanti ku filan ilaahay siiyey. laakiin habeen iyo maalin markaan soo xasuusta waqtiga iga lumay, wallaahi waan shalaayaa misena ilmeeyaa. hadda aniga jacayl uma qabo,
mana doonayo noloshaydii inaan ku laabto haddii ay dhacdo in dib loo kulmo. Maadaama aan jeclaa, wallaahi si niyad ah ayaan u cafiyey. Ilaahay ayaana talada saartay. Waxaana Ilaahay ka baryayaa in nafsigayga uusan ka soo bixin, maxaa yeelay waa gabar Soomaaliyeed. Waxaana Ilaahay ka baryayaa in waddo wanaagsan ay qaado, mar kalena aysan qof sideeda oo kale aysan dhaawicin. Waxyaabahan idinkugu soo bandhigay fariintan ayaa in marka hore aan qalbigayga si wanaagsan ilinta uga soo daadiyo, xusuus dheer aan geliyo, inaan waxaan keligay qarsanayay aan bannaanka keeno si aan inkula wadaago. Aabbayaasheeda Soomaaliyeed iyo wiilasha walaalahayga Soomaaliyeed ah, waxaan idinka codsanayaa inaad iska ilaalisaan nabsi inaad qof kale ka gashaan. Waxaan idinka baryayaa qof ku jecel rajo beel ha ku ridin, waayo aad ayay wallaahi u xanuun badan tahay marka qof aad jecleed aad dhaawacdo. Hadda aniga noloshayda waa caadi, gabar kale xiriir lama sameeyo, keliya waxaan iska shaqaystaa. Xilliga nasashada waxaan iska galaa qolkayga gaarka ah oo aan iskuma weyliya. Igana raali noqda haddii aan ilin idinka keenay ama qisadan ay xanuun idinku reebtay. Haddii aad talo ii haysaan, fadlan iigu soo dira emailka hoos ku qoran.